filimka halkan lagu soo bandhigay caawa oo documentary-ga ah wuxuu ka turjumayay wax kooban oo ka mid ah waxyaabihii aan qabanay muddadii 3 sano ahayd sidoo kale wuxuu ka turjumayay wada shaqayntii mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Banaadir sida ay isugu duubnaayeen isla markaas isku duubnidu ay u keeni karto waxqabad muuqda sidaas si la mid ah ayaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim in loola shaqayn doono guddoomiyaha cusub maxaa yeelay guddoomiyaha cusub oo lala shaqeeyaho waxay ka dhigan tahay magaaladeennaan caasimadda ah oo horumarta waxa uu noo hayaa furihii magaalada waxa uu u taagan yahay horumarinteeda iyo hagaajinteeda magaaladanina waa muraayadii laga daawanayay dalka intiisa kale mar kasta oo magaaladeennaanu ay hagaagto waxay la mid tahay dalka dhammaantiis oo noo hagaagi marka qofka noogu qaabishan inuu magaalada caasimadda ah noo hagaajiyo oo lala shaqeeyahay waxa ay la mid tahay dalka oo dhan oo la xaaqay la dhisay oo laga shaqeeyay sidaas darteed ayaan u codsanaynaa guddoomiyaha ee cid kasta oo ka dambaysa oo xilkan loo magacaabo inaad la shaqaysaan sidii aad anigaba ila shaqaynayseen waxaan doonayaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan fadhida gaar ahaan saraakiisha hay-adaha amniga oo muddadii aan halkan ka shaqaynayay si dadnimo ah karti ay ku jirto ii garab taagnaa waxaan ka codsanayaa sidaas iyo si la mid ah inay u garab taagnaadaan guddoomiyaha cusub oo caawa xilka la wareegaya maadaama la daahay ma doonayo inaan waqti badan iyo war badan sii akhriyo waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo xiriiriyaha si uu asaguna ugu soo dhaweeyo ciddii kale oo aniga igu xigta wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ka cudur daaranaynaa dibdhaca oo sheekhu nagu canaantay caawa oo runtii aan noo qorshaysnayn balse munaasabadda xil wareejinta oo degdeg ahayd darteed waxyaabihii aan wareejinayna isku dubaridkooda uu waqti qaatay waxaan rabaa inaan sidoo kale salaamo mas'uuliyiinta ka socda safaaradda Turkiga iyo hay'adda Tika oo caawa nala jooga halkan cudurdaarkaas xagga dibdhaca ah ayaan uga cudur daaranaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha runtii cudurdaarkaas ama raalligaraynta kadib munaasabaddan waa munaasabad xil wareejin ah oo aniga ah oo Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish aan xilka ku wareejinayo guddoomiyaha cusub Yuusuf Xuseen Jamcaale Yuusuf Madaale munaasabadii beri dhaweyd halkan ee aan ku soo bandhigaynay isla xisaabtankii waxqabadka muddada 3 sano ee aan joognay ayaan ku sheegnay sunnada dawladnimada
inuu ka mid yahay isku wareejinta xilalka sharaf ay noo tahay waxay ka turjumaysaa biseelkeenna dowladnimo waxay ka turjumaysaa dardargelinta howlaha dawliga ah waxa ay ka turjumaysaa sida aan diyaar ugu nahay in aan maamulno bulshadeenna isla markaas aan maamulka iska nasino kuna soo dhaweyno hadba qolada cusub ee loo magacaabay ama loo doortay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinkaga mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalkiina aad caawa nagala soo qayb gasheen munaasabadan xil wareejinta waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaan uga mahad celiyo dhammaan mas'uuliyiintii iyo dadweynihii kala duwanaa ee sida sharafka iyo dadnimada la ila shaqaynayay muddadii aan xilka hayay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa guddoomiyaha cusub oo runtii aan wada naqaano aan ognahay inuusan ku cusbayn xilkan oo hore uu uga soo shaqayn jiray oo aniga iga horreeyey inaad sidii aad iila shaqaynayseen iyo si ka wanaagsan inaad ula shaqaysaan ayaan idinka codsanayaa waxaa laga digayaa in qoysas ay abaartu xoolo tirtay oo beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ay ula kulmaan barakicin qasab ah iyadoo aan loo fiirin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakaca ah goobaha iyo dhulalka ay degaan dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka ah waxaa la gudboon in si wanaagsan ay u soo dhoweeyaan qoysaskaas soo barakacay mar allaale ee loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in wakhti ku filan la siiyo oo u dhexeeya 60 ilaa 90 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qayb ha ka noqon in barakacayaasha ay ku dayacmaan meelo bannaan ah waxaa lagaa codsanayaa in dadkaas aad u turto haddaba qareen maxamed cabdi daahir ha inoo sharaxo waxa looga baahan yahay qoysaska barakacayaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha dhulka ama kuwa wakiilka ka ah qofka barakaca oo ka soo cararay naftiisa la soo cararay waxaa laga rabaa meesha uu degayo inta uusan deginin ka hor inuu hubiyo meesha uu degayo qofka uu la macaamilayo oo ah qofkii dhulka iska lahaa inuu yahay iyo qof aan dhulkii iska lahayn inuu yahay hadduu uu meesha markuu soo dego wuxuu ku qasban yahay ama uu muhiim tahay inuu ilaaliyo in qofka uu la degayo dhulkiisa uu degayo oo iska